السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق وداهر استوديو هنا مانتا وحانا لجوغو قبر لدهاي ستيسي وكو مقع دير فهيمو كسو دوا استوديو هنا waad mahadsantahay daahir وفيع Soomaali oo dhan waan idin salaamayaa أدي أد با أمها سنتهاي فهيمو في صومالي قصف عن با أتقانا صومالي حقا كبرتي aniga Minneapolis baan degnaan jiray marka waxaan degnaan jiray xaafad Soomaali ka buuxa iyo waxaan ka shaqeyn jiray meel airportka ku yaala oo gaariyaasha laga kareysto ما أدي أد ما شاء الله marka Soomaaliga dadka markay ku dhageystaan waxa lagu maleynayaa qof Soomaaliyeed Soomaalida markay ay ku arkaan ama ka arkaan aragtay internetka ay codkaada dhageystaan ama sawirkaada muuqaalkaada ay arkaan waxay isleeyihiin waa gabar Soomaaliyeed ma ahan cadaan maxaa dadka marka ku leedahay u sheegaysaa marka ku dhahaysaa waxaan oranayaa aniga waxaan ahay qof cadaan Mareykan oo ka caadi ah aniga waxaan ku dhashay gobolka Illinois magaalada Chicago agtiisa waxaan ku dhashay marka waxaan ahay qof afafka taqaan aniga afafkan jecelahay waxaan jecelahay dhaqamada kala duwan inaan barto inaan wax ka barto inaan afafka kala duwan barto marka afka Soomaaliga markii ugu horeysa oo aan maqlay dad afka ku hadlayaan waan ka helay afka Soomaaliga quruxdiisa oo badan yahay afka Soomaaliga oo aad iyo aad baa uga hesho dhaqankan Soomaalida waa aad baa u jeceshahay Soomaa aad iyo aad baan ku jecelahay afka Soomaaliga iyo dhaqankiisa Soomaalida marka maxaa ugu jeceshahay dhaqanka Soomaalida maxaa xagga cuntada ha noqoto xagga dharka ha noqoto xagga maxaa ugu xagga Soomaalida ugu jeceshahay dhaqanka maxaa ugu jeceshahay wax kasta laakiin waxaan ugu jecelahay dhaqanka Soomaaliga suugaantiisa صح محمديسا صح iyo murtidiisa waa Soomaali waxa ku hadlaysaa aad iyo aad ma aragtay aniga aan la yaababo ma aragtay Soomaalida dad waxa jira dhaqanka Soomaalida ka tagay oo dhaqankooda ma aragtay Soomaalida oo ka tago dhalinyarta ha noqoto gabdhaha Soomaaliya hada soo kac ha noqoto marka maxaa ku oran lahayd dadkaasi oo hadda wadankan ku koray oo dhaqankooda u maleyn wax fiican waa wax yaab leh horta dhaqanka Mareykanka dhaqan xun ma aha laakiin haddii aad haysato dhaqan qurux badan oo taariikh u leeyahay صح taariikh dheer buu leeyahay afka iyo dhaqankiisaba ha ka tegin afkaaga hooyo dhaqankaaga hooyo waayo waa wax aad iyo aad u qaali badan waa sax marka heesaha Soomaaliga maxaa ugu jeceshahay heesaha Soomaaliga kuwa ugu jeceshahay heesta oo aan ku jecelahay aniga waxaan jecelahay hees kaban haye waxaan jecelahay Hussein Ali Samatar صح waxaan jecelahay Sheemiri Dacar iyo wixii badan ما شاء الله بو ayahay marka waa tahay marka hadda waxa ugu jeceshahay buugaagta Soomaaliyeed waxa u jeeda buugaag agtaada yaalo buugaagtaas Soomaali luqad Soomaali ayaa ku yaalo marka buugaagtaas akhrisan jirtay miya ha aniga markaan bilaabay afka Soomaaliga barashadiisa waxaan aaday suuq Soomaaliga ku yaala Minnesota marka waxaan soo iibsaday قاموسكان أو لهراهدو فيقي قاموس Soomaali ah haye kan aad u fiican yahay waxaan u maleynaa erey kasta oo Soomaaliga ku jira qaamuskan waxaana soo iibsaday buugtaan qoray Martin Orwin waa sax waa buug barashada afka Soomaaliga colloquial Somali isagana aad iyo aad u fiican yahay ku bilaaba wax fudud waa sax markaad bilaawday waxaad baranaysaa qoraalka afka si loo akhristo صح si lagu hadlo صح haddii aad maalin walba ku dadaasha afkaaga waa si korea si fiicnaanaya ما شاء الله markaan buuggan waan dhameeyay haddana afka xogaa waan aqaan aad iyo aad ما شاء الله aad iyo aad baa u fiicantaa marka waxa jira dad kale cadaan oo ma aragtay luqadaha Soomaaliga ku hadlo oo internetka ku jiro marka dadka kuwa cadaamada ku hadla oo af Soomaaliga inay ku hadlaan doonayaan waxay iska dhigayaan inay ma aragtay Soomaali ay ka badiyaan
marka maxaa dadkaas kuwa kale ku dheelaad ina maaragtay luqada adiga hadda Soomaaliga aad baratay inaad very maaragtay si fiican uga hadasho dadka kale oo cadaanka oo hadda Soomaaliga jajabinayaan oo inay soo galaan rabaan oo isdhahayaan Soomaaliya anaga ugu badan Soomaaliya waa naqaana maxaa dadkaas ku dheelaad maskaxda waa hadiyad ilaahay baa abuuray marka maskaxdayda afkayga wax kaasta ilaahay baa abuuray mahad baa ilaahay iska leh ma sha Allah adiga marka ما شاء الله gabadhaada Laylo gabadha oo video ku jirta videoga wanka oo laga doobo markii ka aad joogto Carmel hal gabar ku joogto ninkaadana waa Mareykan Soomaa Mareykan waay ninkaadana waa Mareykan u dhashay marka Soomaalidu markay adig ku arkaan waxay isleeyihiin gabadhan waa gabar ama aragtay oo Soomaali ma aragtay videoga markii ay ku arkeen waxay isleeyihiin oo waa ma aragtay waa recording oo la galiyo oo laakiin picture la galiyo laakiin in adiga tahay exactly kuma rumaysanayaan inay face to face ku arkaan mooyaane maxaa marka dadkaas ka dheeraan meel kasta oo tagtid Minnesota ama San Diego ama Portland ama Seattle waa jira dad Soomaali oo si fiican ay garanayaan waa sax meel kasta ay joogaan ما شاء الله marka ninkaada laakiin waa nin Mareykan u dhashay adigana Mareykan u dhalatay dadkan marka musliminaatay ku qabaan muslimatii Soomaa aniga diinta waan si baranay waxaan aniga rumaysadkayga waxa way ilaahay waa hal صح ilaahay waa hal ilaah baan rumaysanahay ilaahay baan jecelahay idinkuna muslimiinta waan idin jecelahay aad iyo aad waxyaalo badan oo qaali ah ayaan ka bartay dadka muslimiinta oo dhan oo meel kasta jooga aad iyo aad ما شاء الله aad iyo aad marka maxaa isleedahay inaad ka bedel lahayd dadka Soomaaliyeed maaragtay haday noqoto dhaqan haday noqoto maaragtay isu keen Soomaalidan hadda waa aragtay moosa Soomaalida hadda wadankeeni waa aragtay waa isbaabi waa isdilay 20 years almost civil war ka socdo marka haday Soomaali nabad ka dhacdo maxaa isleedahay ka bedel lahayd maaragtay xagga Soomaali ina wadankii aad tagto oo soo booqatay Soomaali sa u jeceshay because dhaqanka waa jeceshay luqadina waa ku hadashaa marka maxaa isleedahay Soomaaliya haday nabad noqoto waan tagi doonaa insha Allah hadii la ka dhigo marka waxaan idin leeyahay qalbigaaga haduu nadiif yahay hadii aad nabad jeceshahay hadii aad walaalkaaga jeceshahay صح wadankaaga nabad ay noqon karta aad iyo aad nabada waxay ku bilowdaa qalbiga iyo maskaxdaada صح iyo haddana waxaa loo baahan yahay waxbarasho صح waxbarashada waa wax muhiim ah aad iyo aad marka Soomaalida marka ku dhex jirtid Soomaalidu iska kaftan badeeyeen ama waxan badeeyeen markay adiga suuqaasha ama Carmel ama meelaha Soomaalida meelaha suuqaasha aad tagto Soomaali waxa jirto iska hadal badan ama ku xamanaayo ama maaragtay ma cadaan miyaa Soomaali oo Soomaali kula hadasho ma ku qabatay waliga wiilasha way ugu digdan yihiin hay wiilasha ugu waxay dahaan oo cadaanka fiiri gabadhaas oo ma Soomaali baa qaba Soomaali ma qaba leeyihiin saas ay leeyihiin luqad xagee ku baratay wiilasha ugu dib badan miyaa horta wiilasha waa ugu dib badan ما شاء الله لكن هذا مينيسوتا waxa u sheegaysaa in reer Minnesota ahaan aad tahay reer Portland Oregon Minnesota waxaan joogay sanadka 2003 ilaa 2009 aan joogay haddana waxaan usoo guuray Portland Oregon aniga aad reer Minnesota isla nahay laakiin haddana waxaan joognaa Portland Oregon la Portland Oregon waxaan deganahay meel fiican way barafka waa ku yeeryahay roobka waa ku badan yahay صح لا محايسة واي ومقالة اسكدقن او معركتي Minnesota معركتي ام سيد البرف كي اوبادانتها انت عن برف ولهين هوادي اسكفي عنتها سوما عادي ادوي في عنتها مركز سيداسا اوغا هشي حقاس اوغا سو غورتي هويدا مركز Minnesota مي ولد دقنتها ميسي انت دقنتها مايا ولد كيغا waxay degan yihiin Chicago walka markay ku arkaan adiga dhaqankan Soomaaliga ku hadlaayo maxay is dhahan marka maxay ku dhahan way iska qoslaan abahay uu jecel yahay inaan afka ku hadlayo isaga ma fahmayo waxba ma fahmayo laakiin uu ka yaaban yahay markuu arko adoo luqadan ku hadlayso muxuu dhahaa xagee ku baratay gabadheeda luqadan gabadheeda xagee ka timid
gabadheeda ma ahan si wax u labisanaysaa gabdhaha maaragtay dhaqankeena oo labisanaysaa siday afkale ku hadlayso afka ku hadlayso Dhaqan marka kale qabsato. waa yaaban yahay aabihii Soomaa aad iyo aad wuu yaaban yahay marka maxaa diraca Soomaalida waa jeceshahay Soomaa in xirato iyo maaragtay garbasaaro garbasaaro goono maxaa marka cuntada ugu Soomaalida maxaa ugu jeceshahay cuntada Soomaalida marka ma taqaanaa si loo waraqan xoogaa sidoo kariya maxaa taqaan marka shaah ma taqaan shaah sambusaha suqaar bariis ما شاء الله غور حتى اختار مركز ما شاء الله marka waxaan leenahay Stacy marka oo gabadha fahiimo ku magac dheer oo Stacy la yiraahdo marka insha Allah taala studio-heena halkaas ayuu maanta noogu eegyahay iyo warkeena studio-heena waxa oo ku yaala magaalada Portland Oregon aniga oo ku magac dheer Daahir oo ku sii magac dheer Oday Ogle marka waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo nabadgelyo السلام عليكم